وريه محمد عبد الرحمن إسماعيل وكمده ورياشة كهول قبل كان أوضل كارهان مقالة بورما ونشقية براها إنترنتك أمس شبكتها إنترنتك كارهان شبكة اللي يلاحظ الصبولها ودور معلومات كل الناس اللي كدحية مقالة بورما أي ما أنت سيدك دجاه لوجود بيه عسبتالك جودة مقالة بورما كدي مركي سيدا أي صحافة وشيغين تتقرب بدي ساهو وكمدي هاي وريها أبيه عبد الرحمن إسماعيل وشيغين يدلوا جيستين وريها ciidamada booliska isagoo ku jira xabsiga ee saldhigga magaalada Boorama lagu afar bari bixirna toosaan bana ku la soo xirana ee jeelkii dhexdiisa lagu dilay kitiinantii lagu xiray baa la dilay kitiinad bay ku xireen dibadna bugta laga saaray shalay baa la dilay afar nin baa isku tagtay waxaan u sheegayaa warbaahinta ninka Soomaaliya lagu dilay ee maana waxaan u geysanay jirin ee xaqdarrada lagu dilay sheegayaa عادي لو قلت انت ولا جاي هذا كله هو قد دمشق سكرات كما دكوا اي مكان وليك بخلو نفط tay ku dilayaan kulay ninka wala soo xidhay website buu ka shaqeynay marka shaqadiisii bay ku tumeen inuu wax khaladaad sameeyay way soo xidhan marka waxaan u dirnay kulay odayaashii beesha salaadintii baa kulay u dirnay moogta gabadhii iyadoo la isku waafaqsay marka in la soo daayo ay marka in kiira inta la soo deeynin niman saldhiga kamida ayaa kiira la soo baxay moogta marka afar nin oo ka tirsan saldhigan Boorama ayaa marka waxaan ku qoriga dabadiisa iyo lugiisa way la dhaceen marka waxa weeyaan markaan nidida meedka nasiyana anigiiba ka waaga saareen wariyaha oo aan ku booqanay isagoo ku jira cusbitaalka qaybta xaaladda degdega ah ayaa xaaladiisu waxay ahayd mid aan u hadli karin haddaba waxaan arrintaasi wax ka weydiinay taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Boorama Maxamuud Yuusuf Cigar Raran wuxuuna jawaab ka bixiyay su'aal ahayd bal in ay jiraan in wariyaha la jirdilay oo boolisku dileen sida ay qaraabadiisu sheegtay wuxuuna taliye Maxamuud Yuusuf Raran kaga jawaabay arrintaasi eedaysano ninkaasi wuxuu wax ku qoray website wuxuuna sheegay in ay xeebaha galbeed ka soo degeen ORLF qaabkaas warta u xidhnaayeen eedaysanuhu jirdilkan iyo waxaan la sheegayaa horta wax jira maaha xeer baa jira maxaabista lagu dhaqo xeerkaas oo ah in marka maxbuuska la tirinayo wixii uu qalab haysto haday mobile tahay iyo hadii kalaba ay haday hanti lacag tahay in laga qaado la dhigo saldhiga askartu waxay ogaatay ama ilaaladii xabsigu waxay ogaadeen in mobile maxaabista mid kamid uu haysto way baareen maxaabistu dibadda u saareen waxa mobilkii laga helay gugashiisa sida darteed markii la helay uu mormay askartiiba la dagaalamay waxbuu ku yar dhuftay iyaguna waxoogaa dhirbaaxyo waxaan noocaas ayay ku dhufteen laakiin jirdilkan la sheegaya wax jira maaha taliye Maxamuud Yuusuf Raran waxaan weydiinay haddii ay dhakhaatiirtu caddeeyaan in wariyaha la dilay bal waxa tallaabo ah ee ay ka qaadi doonaan ciidanka falkaasi u geystay wariyaha wuxuuna ku jawaabay taliye Maxamuud Yuusuf Raran jirdil horta ma dhici karto maxaabista qaabka loola dhaqmaa maaha in la waxyeeleeyo laakiin mar wax dhacda nin maxbuusa oo isagoo askarta ku aflagaadooda oo la dagaalama laakiin wax dhacab maaha in jirdil iyo kas loo dilo nin maxbuus oo ku xiran saldhig qaraabadiisu waxay ku dacwoonaysaa inuu ninkan ahaa cameraman oo wax soo duubi jiray laakiin si website-ka aanu isagu waxba gelin horta investigation-ka waxa gacanta ku haya qoladan laanta baadhista dambiyada si dhidaysa saldhigu ma haynin xagga baadhista sida awgeed wax iiga xog badan cidii markaa gacanta ku haystay kiiska oo ah CID dhanka kalena sida ay sheegayaan wararka aan ka helayna magaalada Gabiley waxa maanta duhurnimada ay ciidanka booliska ee magaalada Gabiley ku qabteen guri ku yaala magaalada Gabiley hogaamiyihii koox ay hore maamulka Soomaaliland u sheegeen inay yihiin eedeysanayaal ku eedeysan inay geysteen dilkii ka dhacay deegaanka Seemaal 5 bishii Disembar 2011 hogaamiyahan oo la oran jiray Cawar Xareed iyo dhowr xubnood oo kale oo helinayay ayaa lagu qabtay gurigaas oo ay qabteen ciidanka booliska ee degmada Gabiley saasina waxa telefishinka Soomaalisat u xaqiijiyay dad goobjoogayaal ah oo degan magaalada Gabiley iyo ilo wareedyo kale oo ku dhow xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Haashim Sheekh Cumar Good Soomaalisat TV Boorama